caawa xalay ka daran xalay iyo caawa caaway daran tahay maxaa yeelay caawa bamkii ama gantaaladii loo yaqaano clusterka waa hal gantaalo kalaa ku dhex jiro konton koox amala yar yar dhimbila ah markuu gantaalka hawada soo galo ama imaaraad ama israa'iil albaabaa furmaayabano konton xabaa soo yaacees alaabtii caawa iiraan soo dirtay si fiican ayaa u faahfaahin doonaa waxaa kaloo la soo ogaaday khubarada ee ka hadlayaan sababta ugu weyn iiraan ee sacuudi imaaraad kuwait qatar baxreen cumaan intaba sababtay u duqaysay maxaa waaye heshiis waxaa jiro iskaashi dhanka gaashaandhigga ah kulligooda ee maraykan iyo yurub ee la galeen faransiis iyo ingiriis iyo maraykan iyo ee la galeenaya jiro muxuu yahay heshiiskaas haddiina lasoo weerarona difaaca faransiiskii hadduu soo diray hadda waa faransiiska hadduu soo diray halkii markab ee dunida uu ka qabay ee aircraft carrierka ah hadduu soo diray sababtu maxay tahay saldhig ciidamadiisa ay ku lahaayeen dhulkan loo yaqaano imaaraadka carabta caawa oo lagu daatay alaabtii iiraan ay soo dirtaa ku daadatay maraykan caawa sidoo kale isla caawadan waxaa holac iyo qiiq uu ka baxayaa saldhig maraykan uu ku leeyahay irbil ciraaq askartii maraykanka dhimatay saddexba ha noqdaane oo culays fara badan u keenay ninka la yidhaahdo donald trump isla markii abaabul xooggan oo dhanka siyaasadda ah ayaa maraykan ka socda waxaa jiro dadka soomaalida maraykan aan joogin waxaa jiro dad aad u tiro badan maraykankan joogo oo ka soo horjeedo duulaan in maraykanka uu mar kale bariga dhexe ku galo tii ciraaqa lagu guuldareystay tii vietnama lagu guuldareystay tii kuuriya maraykan meel uu galo oo khayr oo ka yimaado waa la waayay dhaqaalaha iyo sicir barri iyo balaawa ay bilaabanaya dadka marka hadda isla markii waxaa bilaawday donald trump isla xisbigiisa jamhuuriga aaba is-abaabul caawa shir jaraa'idii waa maqli doontaan ayagoo dhahayo dhiiqaana gelisay xilli doorashaa lagu jiraa novembartan hadda soo socoto waxaa laga yaabaa in lagala wareego kongresska haddee saan kusii socoto trump wax guul ah uu keeni waayo trump marka laba daran mid dooraa hadda maanta xisbigooda waa in wax alaaliya wuxuu samayn karaa uu sameeyo uu soo afjaro dagaalkan ma soo afjari kara soo ma aha alloore dhib weyn ha imaanaya marka hadda maanta waa maqlayseen trump oo lahay wada hadal diyaar iiraan waa laga yaabaa inaad maqsheen saas ayuu yiri ayay waxaan ugu soo celisaa iiraan maraykanka heshiisyo fara badan oo la galay sacuudiga kuwait ciraaq dalalkan dhan ay hadda maanta iiraan ay duqeynaysa caawa oo xalay ay duqeysay oo lagu kala cararay oo elboorada dhan ay xirmeen oo shidaal meeluu mare la la'yahay wixii oo dhan kala cararkan socdo dhan kulligooda maraykan iyo ingiriis iyo nato dalalka nato ay heshiis la seexdeen heshiiska muxuu ahaa difaac caawa maxaa aragtay xalay maxaa aragtay dubai ku habsanaysaa bahasha dooxa waa aragteen daaqadaha la iskaga gelinaya gantaalka marka cid difaacdo ahli waay iiraan marka meeshaas ninkii ruush ahaa shaarbo xoqana kii north korea caawa shaarbo even though saaxiibo gaar ay yihiin waxbay u qaban waayeen laakiin waxay arkayaan iiraan ooba taaganba maraykan iska badaaye israa'iil iska badaaye xulufadooda meeshii ayaga ee lahaayeen ilaalinayna aan ku habsanayna marka sumcad xumo aad u ballaaran ayay ku tahay maraykanka duqeyntan dalalka uu asaga heshiiska la galay gaashaandhiga oo difaaca uu dhahay oo la iska qarramsanoy waxa qosol igu dilaya ninkii kale ee la dhahay Erdogan waa xariif ninkaas waa xariif waxa aragtid ka sheeg sheekada dhinacay u socoto fiiriyay waxa iga daran xasan sheekh wuxuu soo diray ambaareen Iiraan u soo diray mogta xasan sheekh laakiin Erdogan farsamuu sameeyay wuxuu soo diray tacsi Erdogan tacsi uu soo diray ayatullah ali khamenei jannada allah kugu xayuubiyo walaa waa dhimatay waa kaas Erdogan waa ninka kaliya maanta tacsi soo diray waay Erdogan waa xariif intaas wuxuu ka cararayaa Iiraan ay isu gelin iska keeda ana teed u yaaban oo hadda meel satraad laga tuurto Soomaaliya dhisanayo tacsida iga hoo iga aamus aw Mareykan miyaa hadan saaxiibanahay ilaa saldhig Mareykan ku yaalo Turkiga wali lama gelin waay shaqada marka meesha joogto caawa dabcan Iiraan waxay adeegsanaysaa cluster bombkii weynaa ee bombamka kale ku sii dhex jireen ay adeegsanaysaa albaabka furmaayo way soo daadanayaan bombkan waa laga qeylay cluster bombka Shiina haysto Ruushka haysto Mareykan haysto Israa'iil ma haysto sidii ugu maqaalada ah marka waa halis maxaa yeelay waxay dudumin karaan magaalo dhan waan aragteen hadda muuqaalkan inaad duubo waxa igu kalifay muuqaalkii ugu horeeyay ee cluster bombkaas oo Iiraan caawa ay soo dirtay ayaa arkay oo carabti saas u dulmaray laakiin sheekada sanadka hore way ka duwan tahay hadda Dubai ee waxay siinaysaa 20 koox bay u reebay waa ka soo gudbayaan
ما لو ريبانو معناها marka horta war iyo gabagabadiisa dabcan Israa'iil waxay leedahay hawadii Iran ana la wareegay leedahay marka adiga isqabadsi xisaabtan isqabadsi hawadii hadaa la wareegtay daqiiqad ka dambayso haddii gantaalo iyo shaahid alaabtii shaahidku atiqa Ukraine eber looga dhigay ruush isticmaalo waxa sameeyo farsameeyo Iran farsameeyo shaahid daroonka la soo ridaay maxay tahay adiga su'aal ku weydiina adiga hadda guriga hadda zab ka qabtid ilbaabka lagu istaajiyo oo dadka cili lagu dhaho oo iska kaasoo agudbaayo macna ma yeelanay waa may soo saas amulay ina Israa'iil waxay taagtay hawadii ana haysto waa la wareegay Mareykan la joogay sidoo kale wixina waa soo dhucuyaan leh drones waa soo socdaan kii kale waa gantaalada caawa saas u soo socdaan marka dagaalkan xaqiiqada marka ka hadalno ninka Donald Trump laba mid hortaal inuu dagaalkan soo gabagabeeyo oo Iran ay isdhiibto taas ma muuqataa waa maya in uu bash meesha soo gabagabeeyo heshiis wuxuu la gali karaa kuwaan hadda meesha joogo oo la galo hadda Iran ka aqbasho oo sheekada sida hore dib loogu laabto Iran oo shees ka wadato haddana sanad kale kadib duqeen iyo balay meesha ka socoto Iran waa diiday taas Iran joogada dhanay faantay waxay tiri aniga hal isku baabao hal isku dhinto ay Iran taagan tahay ninka Donald Trump ahna Mareykanka waa looga kacay aad loo kacay dad waxaa jiro aaminsan in Israa'iil wadankan ay maamusho iyaga kamid ah cadaanka laftirkooda aaminsan ba xisbiyada kala duwan kuwa dimuqraadiyiin kuwa jamhuuriyiin waxaa jiro maalin ka dambaysa si aaminayo in Netanyahu laga amar qaato oo Trump uu Netanyahu ka amar qaato sheekadaas marka soo ifbaxayso culays fara badan imaanayo iyo muxuu ahaa dad fara badan oo buuq ku furi rabo Trump hadda bilaawtaba oo leh walaalow dagaalana gelisay dad askar dhimatay jooji haday sheekadaas ku sii socoto maraakiibta Mareykanka gantaalada saldhigyada Mareykanka bariga dhexe sida hadda caawa dhaceysaba hadda fiiri warkii gabagabadiisa waji xumo iyo sumcad xumo ballaaran ay u tahay Faransiis iyo Mareykan iyo Israa'iil iyo Ingiriis caawa bariga dhexe war saldhigyadoodii iyo saaxiibadoodii la iska duduminooya la iska galooya waxna waa laga qaban la'eh qaatam odagii weynaa dilay Ayatollah Ali Khamenei war ma aha odagii waa dilay gantaaladuna soo socdaan war ma aha sheekada hadda meesha ay joogto Iran dan ugu jirtaa ilaahu kii ugu weynaa kadib haddaysan saan wax ka bedelin sheekadan soo gabagabeyn karin ciddaan ayada ah ee duulaanka qaaday baxar weyn ku jirtaa aniga hor